wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane Ali Dhuux Maxamed oo maalintii saddexaad hoolishaga Karooga gobolka Bakool iyo geeka wali daahfuray horyaalka kubadda kolayga kaas oo la ka qabadi degmada Xudur xarunta gobolka Bakool kulankan daahfurka ciyaarta wali baa ku qayb galay maamulka gobolka iyo kan degmada Xudur dhinaca kale wasiirka iyo dharka ciyaaro kubadda kolayga ee guddoonsi ilaa iyo afar kooxood oo ku qayb gala doonaan horyaalkan kubadda kolayga lagu daahfuray magaalada Xudur tan wali bayada qayb ku nagadahay horumarinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada iyadoo oo dhanka kalena qayb weyn iyo ku qaadadaasa isdhexgalka bulshada lamada kooxood oo geeka la ka daahfuray kulankan iyo xukuumadda waliba kabtan ku hayay gudoomiyaha degmada Xudur oo xukuumadda ciyaaryahanada kubadda kolayga ee degmada Xudur Maxad Fiidow Maxamuud gudoomiyaha sportiska ee degmada Xudur iyo ku hadalay goobta daahfurka horyaalkan ya sheegay inuu soo ka faraxsan yahay bilowga horyaalkan geeka uu soo dhanaga kalena anka mahadnaqay wasiir Ali Dhuux Maxamed أنت عندك سيان أفرتيم أو باسكتبول درشة كوبوجو iyo tiksantiyo iyo uniform lanka talgal iyo hamidir siyaan iyada ma ilaha inka ma naqaan runtii wasiirkii xubnaaje meelana iyada ma ilaha inka ma santin dhalinyarada runtii reedkii ciyaaraha way afartii team ku tarsan laba team kumada iyada ma ilaha inka faraxsan in uniform hanadeer oo naxna booqdo xaaladana la ogaado iyada ma ilaha inka faraxsan walilana hadhawaada waana farxida insha Allah Maxamed Abdi Tol gudoomiyaha gobolka Bakool oo kulanka xaadiri iyo waliba isugu wal badan ku hadalay baahiyo dhalinyarada iyo ku haysta garoomada iyo inay waliba dhanka tababarada jawaayidan ka faraxsana in booqasho gaaban ku wasiirka sportiga dawlad goboleedka koonfur galbeed oo ay kula qayb gala ciyaar gobolka Bakool way hay goboladii ma ciyaaro hadii sadiidas ciyaaro aan sheego hadii ku qayb galaan ka fayl waxa ana ciyaarta handballka sempre ma heri jireen ma ilaa semi final ha gali jireen ciyaartooydaas oo serie A ana way dhalinyaro far badan oo inta kubadda serie A gali jirtay ka shaqeey jirtay ya ciyaari jirtay marka sidaas daraadii waa in baahna baahida inta jirtay inuu ninkin gudbin anta maylin baahnya kubadda cagta dhalinyarada kubadda cagta way lin baahnya in tababar leen furo ilaa sad kooxood tababar leen furo 36 qofood tababar leen furo helan tababarki wasaaradda sportiga dawladda federaalka ma qoodsadaan tababarayaasha xamar bilaash in isku fadhi in haneen diran saddex tababar oo kooxda basketball koo football kooxda volleyball in haneen diran qodsada anka dambeyn wasiir Ali Dhuux Maxamed yadda furitaanka horyaalka kubadda kolayga sheegay inay ku jeysada doonaan gobolka Bakool horumar dhanka dhalinyarada galabta waxaan ku sugannahay garoonka basketka ee degmada Xudur oo qayb ka ahayd safarkii aan ku nimid gobolka Bakool degmada Xudur u kuura galidda ciyaaraha kala duwan gobolka Bakool degmadiisa Xudur maanta waxaan qabanaa tournament ay ka qayb galayso afar kooxood tournamentigaas oo tournament basketball ah oo la rabo in lagu asteeyo nabadda deegaanka ka jirto dhalinyarada sida ay heegan u yihiin dhalinyarada sida ay macnaha diyaar ugu yihiin sida u horumarin lahaayeen qaybaha kala duwan ee sportiska aniga ka shakhsiyan ka wasiir ahaan waxa farxad ii ah inaan arko tiimam abaabulan oo basketball ah oo ka faa'iideysanay garoonkii loo dhisay oo arbitrayaal leh oo tababarayaal leh oo maanta rabaan inay basket ciyaaraan isla markaasna meeshan ku soo bandhigay wacdara aad u fiican oo basketball ah waxaan dhageysanay qaybaha kala duwan ee baahiyaha ka jiro waxaan aragnaa inay naadiyada u baahan yihiin tababaro waxaan aragnaa inay tababarayaashu u baahan yihiin in xirfad kordhin la siiyo waxaan aragnaa inay ciyaartooydu u baahan yihiin in technical levelkooda iyo xeerarka basketballka sida kor loogu qaadinayo in la suubiyo waxaan saakada hore la kulannay gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa hadda waxaan nala joogo ciyaarta nala fiirsanayay gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa waa arkayseen gudoomiyaha gobolka baaqi uu diray ee ahayd in si degdeg loo soo gaaro walitool wuxuu aad ugu celceliyay wasaaradda shaqada fiican ee naga dhaxayso oo wasaaradda federaalka oo ay hogaamiso Khadiija Maxamed Diiriye sidii ay ugu soo diri lahayd gobolka Bakool tababarayaal ama xiriiradii kala duwanaa ee kubadda kolayga iyo atleetikada insha Allah waxaan ku dadaali doonaa annaga oo ku shaqaynayna awaamiirta iyo aragtida madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen in aan kor u qaadno ciyaaraha kala duwan
ee ka jira dowlad goboleedka koonfur galbeed markii ciyaartaha dhamaatay wasiirka iyo kulamo gaar ah la qaadadi ciyaaryahanada iyoonay guddiga u soo waanasi tala bixinka aadan qaab ciyaareedka Cabdinuur Sheekh Aadan Yuusuf TV iyo raadiyaha koonfur galbeed magaalada Xudur